بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحكبرنا ويدينتنا what is a business administration؟ معمولية جناعسيجا أما business administration وحنكو قيحي كرنا إنay tahay maareynta shaqooyinka kala duwan ama waxyaha kala duwan oo ay shirkadda ka kooban tahay ayadoo la rabo in laga faa'iideysto kheyraadka kala duwan ee shirkadda si looga qayb qaato gaaridda ujeedada u degan shirkadda. Shaqooyinka kala duwan oo ay ka kooban tahay maamulidda ganacsiga waxaa ka mid ah kuwan hortiina ka muuqda waxaanan uga hadlaynaa mid. Kow, strategic planning. Qorsheynta waa wax la rabo inay la socoto isbeddelka suuqa ka jira ama iman kara iyo inay ogaadaan fursadaha ka bannaan suuqa iyo sidii ay shirkadda uga faa'iideysan karto. Waxaana laga sugaa in ay dejiyaan yoolalka fog oo la rabo inay shirkadda gaarto, waxayna la soconayaan jihada guud ee shirkadda u socoto si ay u ogaadaan haddii laga weecday ama haddii lagu taagan yahay waddadii gaarsiin lahayd in la gaaro ujeedada shirkadda. Ogowna marka jaamacadda la joogo maadadan waxay ku fiican tahay in la qaato semesterka u dambeeya waayo ardayda waxa ay siinaysaa awood ah inay isku xiri karaan maadooyinkii kala duwanaa oo ay ku soo qaateen takhasuska maareynta ganacsiga. Qaybta labaad ee muhiimka ah waa operation management ama maareynta howlaha shirkadda. Waxa ay maamulaan wax soo saarka shirkadda ha ahaato badeecad ama adeeg. Waxaa laga rabaa inay wax soo saarka shirkadda ay u socoto si habsami leh. Waxaa laga rabaa sidoo kale inay la socdaan inay shirkadda haysato sahay ku filan si aysan shaqada ka socoto shirkadda carqalad ugu imaanin. Waxaa kaloo laga rabaa inay la socdaan tayada wax soo saarka shirkadda. Waxaa kaloo ka mid ah maamulidda ganacsiga financial management ama maareynta maaliyadda. Waaxdan waxaa laga rabaa inay la socdaan maamulaana wax waliba oo la xiriirta maaliyadda shirkadda sida in ay sameeyaan miisaaniyaddii, inay saadaaliyaan maaliyadda shirkadda ee soo socota, in la falanqeeyo xogta maaliyadda. Sidoo kale waxa ay maamulaan qulqulka lacagta shirkadda, qarashaadka iyo wixii la halmaala. Waxaana laga rabaa in ay qaataan go'aamo lagu xaqiijin karo badqabka maaliyadeed ee shirkadda. Waxaa kaloo ka mid ah waaxda ugu muhiimsan marka la maamulayo ganacsiga human resource management ama maareynta shaqada iyo shaqaalaha. Waana waaxda ka mas'uulka ah shaqaalaysiinta, tababarka. Waxaana la rabaa inay dhaqan geliyaan xeerarka shaqada iyo shaqaalaysiinta shirkadda u degan iyo waddanka welibana. Waxaa ka mid ah waaxyaha ugu muhiimsan sidoo kale marka la maamulayo ganacsiga suuqgeynta iyo iibka. Waxaa laga rabaa in ay sameeyaan cilmi baaris suuq oo ay ogaadaan baahida macaamiisha iyo rabitaankooda waa maxay. Waxaa kaloo laga rabaa in ay gaaraan hadafka iibka. Fiiro gooni ah waaxyaha ama shaqooyinka ganacsiga waxay hadba ku xiran tahay baaxadda ama awoodda ay shirkadda leedahay. Waxaanan ka hadalna oo keliya qayb ka tirsan kuwa ugu muhiimsan. Gunaanad, hadafka guud ee laga rabo in laga gaaro maamulidda ganacsiga waa in sare loo qaado lana gaaro hadafka guud ee shirkadda u degan ayadoo laga faa'iideysanayo kheyraadka kala duwan ee shirkadda. Fadlan lifaaqa hoose ka dhigayso micnaha management, sales, marketing, human resource management, objectives, goals, vision, mission, recruitment, selection, training and development. Mahadsanidin waa inoo markala dirabiidmo.